kulan wacan wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka Samareeb TV qodobada warka Samareeb TV ugu dorkoranaya waxa kamid ah wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegtay in waajibaadka shaqo ee AMISOM uu ku eg yahay bishan December doorashada oo aan la hakin ayaa la sixi karaa qadalaadka jira sidaas waxa yiri gudoomiye Ciro garab kamid ah saraakiisha ciidamada BSF ta Puntland oo u wareegay dhinaca Deni Soomaaliya iyo Itoobiya oo ka wada hadlay amniga iyo dhaqaalaha Deni oo ka hor yimid qorshaha ay wadaan midowga musharaxiinta madaxweynaha dilka dhacay deegaanka tirsan gobolka Galgaduud daawadadan cusubtaan ugu soo biirta subscribe sarga malkan fur si aad u jiddo warkii ugu dambeeyay kan soo dhigno maalinimo aslina taariikhda ay ku beegan tahay 6 bisha December 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kala misran wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali ayaa maanta Muqdisho kula shiray taliyaha ciidamada AMISOM General Domade Indegeye iyagoo ka wada hadlay waajibaadka shaqo ee ciidamada AMISOM Cabdisaciid iyo General Indegeye ayaa ka wada hadlay qorshaha kala guurka iyo sidii ciidanka ammaanka u wareegi lahaayeen ammaanka dalka marka ay ciidanka AMISOM ka baxaan gudaha Soomaaliya inta uu kulanka socday waxa diirada lagu saaray sidii loo hirgelin lahaa qorshaha ay Soomaaliya kula wareegayso sugidda amniga qaran iyadoo qorshaha kala guurka lagu salaynayo heshiisyadii hore loo gaaray iyo waaqiciga jira maadaama waajibaadka shaqo ee ciidamada AMISOM uu ku eg yahay bisha December ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wasiirka iyo General Indegeye ka wada hadleen sidii ay u wada howlgali lahaayeen laba ciidan iyadoo Soomaaliya leedahay mas'uuliyadda jihaynta AMISOM ayaa qorshuhu ahaa in ay dalka ka baxdo dhamaadka December 2021 balse qorshaha ka bixitaanka waxa isku khilaafsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal Faith Maxamed Xasan Ciro ayaa sheegay in aysan suuragal ahayn hakinta doorashada golaha shacabka si loo saxo qaladaadkii dhacay ee keenay cabashooyinka Maxamed Xasan Ciro gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Faith oo la hadlayay Universal TV ayaa tilmaamay in la isku dhax wadi karo qabsoomidda doorashada iyo saxitaanka qaladaadka ka hor imaanaya xeerka uu ku shaqeeyo guddigoodas la iswaafajin karo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federal Faith ayaa sheegay in abraaca loo marayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee gobolada waqooyi Somaliland uu ka duwan yahay kan golaha wada tashiga uu dejiyay Ciro ayaa tilmaamay in dib loo eegayo kuraasta 22 ka ah ee xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12 ee Soomaaliya si loo hubiyo habraaca loo maray in uu waafaqsan yahay heshiiskii golaha wada tashiga qaranka doorashada golaha shacabka ee dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxaa taagan cabasho iyo eedo la xiriira daafurnaanta tartanka labada madaxweyne ee dawlad goboleedka Galmudug iyo Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ku soo baxay doorashooyin dhiig ku daatay oo ka dhacay Baydhabo 2018 iyo Dhuusamareeb 2020 kuwaas oo taageero ciidan iyo khub ka helay xilligaasi madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararka naga soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in gaashaanle sare Abdiraxmaan Maxamed Elig oo ahaa taliye ku-xigeenka guud ee ciidanka BSF ee Puntland uu ku biiray garabka xukuumadda madaxweyne Deni taliye ku-xigeenka ayaa horey wuxuu u diidanaa xilka qaadistii lagu sameeyay agaasimihii hay'adda BSF isagoo shir jaraa'id uu dhawaan qabtay ku sheegay in xilka qaadistii agaasimaha hay'adda BSF ay ahayd sharci darro balse mowqifkiisa uu bedelay xukuumadda madaxweyne Deni ayaa wada qorshe lagu kala furfurayo saraakiisha ciidamada BSF si dagaal uusan ugu dhicin Boosaaso xaaladda magaalada Boosaaso ayaa haatan ah mid degan inkastoo xukuumadda madaxweyne Saciid Deni ay ciidamo aad u fara badan geysay xaafadaha magaalada Boosaaso wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali ayaa qaabilay safiirka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya u jooga Soomaaliya Cabdifataax Cabdullaahi Xasan ayagoo ka wada hadlay adkeynta iskaashiga ka dhaxeeya labada dal ee dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha safiirka ayaa la wadaagay wasiir Cabdisaciid Muuse Cali hambaliyo iyo salaan ku aadan xilkan qaran ee loo magacaabay oo ugu siday dhigiisa dawladda Itoobiya wasiirka iyo danjiraha ayaa kulankooda waxa kale oo ay kaga wada hadleen waajibaadka shaqo ee ciidamada AMISOM iyo iskaashiga labada dal ee arrimaha geeska iyo qaaradaba dawladda Itoobiya ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka saaxiibada dhowlaa Soomaaliya xilligan waxaana dalka ka jooga
ciidamo fara badan oo ka howlgala magaca AMISOM kuwaas oo ka qayb qaata dagaalka dhanka al-shabaab. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay guddiga doorashada heer federaal kuwaas oo ay dib u celiyay kuraas ka mid ah doorashada golaha shacabka. waxa uu sheegay in la qabtay oo aan loo marin habraacii saxda ahaa, isaga oo sidoo kale ku booriyey guddiga xalinta khilaafaadka in iyaguna ay waajibaadkooda u gutaan si cadaalad ah oo waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashada ee laga soo gudbiyey cabashooyinka. Ra'iisul Wasaaruhu wakiilo u qaabilsan arrimaha kuwaas oo si joogto ah ula soconaya dhaqdhaqaaqa doorashada warbixin ka siinaya Ra'iisul Wasaaraha sida lagu yiri qoraalka. Puntland ayaa ka hortimid qorshe laga cabsi qabay in ay ku dhaqaaqaan midowga musharaxiinta oo ah in ay dhisaan gole qaran oo dalka maamula sida ay ogaatay warbaahinta. Mowqifkan ayaa waxaa laga soo xigtay madaxweynaha maamulka Saciid Cabdullaahi Deni intii uu socday shir qadka Zoom-ka ah ku dhaxmaray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada oo dhacay 29 November. Shirkaas ayaa Ra'iisul Wasaaraha waxa uu madaxda maamul goboleedyada kala hadlay sida doorashada dalka looga dhigi lahaa mid daahfuran oo lagu qanci karo, wuxuuna la wadaagay walaaca uu ka qabo in mucaaradka ay qaadaan tallaabo dalka gelin karta qalalaase siyaasadeed haddii ay dhirsaan gole qaran ama bilaabaan hanaan doorasho oo dhinaca socda kan ay wadaan xukuumadda iyo maamul goboleedyada. Midowga musharaxiinta ayaa u arka maamulada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed in ay u adeegayaan villa Soomaaliya, taasi oo qiil uga dhigteen in ay qaadacaan doorashooyinka. Si kastaba, Saciid Deni ayaa Rooble u sheegay in maamulkiisa uusan ku raacsaneen aragtida midowga musharaxiinta uuna taageersan yahay in doorashada la sii wado balse la saxo qaladaadka jira. Maleeshiyaad hubaysan ayaa nin rayd ahaa waxaa xalay xilli dambe ay ku dileen miyiga degmada Caabud Waaqe waqooyiga gobolka Galgaduud ayagoo dilka kadib goobta ka baxsaday. Ninka oo magaciisa lagu soo koobay Januune ayaa ka mid ahaa xoolo dhaqatada gobolka Galgaduud, wuxuuna ahaa dadka abaarta ka jirta meelaha ka mid ah gobolka Galgaduud ka cararay ee tegay deegaanka lagu dilay ee miyiga degmada Caabud Waaqe. Wararka la helayo ayaa waxaa intaasi ku darayaan in dilkaasi uu salka ku hayo dil la xiriira aanooyin qabiil oo dhowr jeer ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug. Saraakiil ka tirsan booliiska Galmudug ayaa waxa ay sheegeen in ay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyey dilka ninka rayidka ahaa, isla markaana dhowaan ay gacanta ku soo dhigi doonaan. Sanadihii la soo dhaafay ayaa deegaanada Galmudug waxaa ku soo batay dilalka lala xiriirinayo aanooyinka qabiil, halka meelaha qaar ay ka dhaceen dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed, iyadoo maamulka Galmudug uu ku guuldareystay wax ka qabashada colaadahaas. Intaas aynu ku saafmeerina warkaad kala socotaan Samareeb TV. Anta warkan warladan ku mudan waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.